dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku tagrifal iyo ku tamasho gaar ah ku sameysay Generaal Sheikh Axmed Cali oo ka mid ah saraakiisha ugu firfircoon ciidamada dowladda Soomaaliya kaas oo hadda ku xanuunsanaya mid ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Generaalka oo ay dad badan og yihiin in uu xoreeyay gobolka Hiiraan, Shabeellada Hoose, qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana wadada isku xirta Muqdisho, Afgooye iyo Shabeellada Hoose guud ahaanba uu ka qaaday isbaarooyin sidii tusbax oo kale u daadsanaa. ayay dowladda Soomaaliya uga abaalguday in gurigiisa loo dhaco, isla markaana la dilo qaar ka mid ah ilaaladiisa, caruurtiisa, xabsigana loo taxaabo. Generaalka ayaa waayihii dambe waxaa soo baxay warar sheegaya in uu xanuunsanayo una baahan yahay caafimaad iyo dabiib dhinaca dibadda ah. ha yeeshee dowladdu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhagaha ka fureysatay kadib tallaabooyin ay qaadeen xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isla markaana matala Generaal Sheikh Axmed Cali oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa lagu dulmiyay awoodda dowladeed ee dalka. Generaalka ayaa hadda la soo tabinaya in xaaladiisa ay tahay mid aad u adag, waxaana warkaas aan ka soo xignay qaar ka mid ah eheladiisa uu ka mid yahay Cabdishakuur Shaasha. Cabdishakuur oo la hadlay mid ka mid ah warbaahinada madaxa bannaan ee dalka ayaa waxa uu sheegay in xaaladda generaalka ay tahay mid aad u xun, qoysna ay ka joogaan ehelada, taasina ay sabab u tahay dowladda uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr jeer xaaladiisa lagala hadlay. ha yeeshee uu ka biyo diiday in xorriyadiisa dib loogu soo celiyo, iyada oo ay jiraan saraakiil iyo rag aan saraakiil ahayn oo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho dad ku dhacay, dad ku dilay, ku dhibaateeyay, boobay hanti ay leeyihiin dad shacab ah, sida uu sheegay Cabdishakuur Shaasha. ha yeeshee wax tallaabaha laga qaadin, ha yeeshee iyagay u arkaan heebsooc iyo sidoo kale takoor lagu sameynayo beesha uu ka soo jeedo Generaal Sheikh Axmed Cali oo ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya, sidoo kale la dafiray darajadii ciidan ee uu bixiyay Xasan Sheekh Maxamuud. Generaalka hadda waxaa la sheegay in looga badan yahay dhinaca beerka, kuna dhacay xanuun allaha ka haya bulshada Soomaaliyeed oo dhan oo loo yaqaano kansarka, dalkana wax looga qaban karin, dowladana ay diiday in laga bixiyo cisbitaalka gaarka ah ee uu ku jiro, inkastoo ay soo baxayaan shak iyo tuhun ah in generaalka la sumeeyay si nolosha loo dhaafiyo. dowladdu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 2 sano iyo barka ay shaqeynaysay waxaa lagu tuhmayaa in ay geysatay gaboodfallo iyo sidoo kale weerar shakhsiyaad gaar ah lagu bartilmaameedsanay, iyadoo taasi ay fulinayeen rag dariiska dowladda labisan, kuwaas oo qaar ka mid ah weerar toos ah ku qaaday Generaal Sheikh Axmed Cali, iyaga oo ka raad raacaya xilligii uu shaqeynayay iyo isbaarooyin qaarkood u yaalay wadada isku xirta Muqdisho iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Hoose, iyo sidoo kale howlgal generaalka u dirsatay dowladda Soomaaliya uu fuliyay, iyada oo taasi ay raacayaan ayaa la sheegayaa inay u maleegeen qorsho lagu weeraray gurigiisa, lana doonayay in nolosha lagu dhaafiyo. xukunkii ku dhaca generaalka ayaa aad loo suluugsan yahay, waxaana jira in raggii qaar ee weerarka ku qaaday maxkamadda ay ka soo muuqdeen ku marqaati fureen, taas oo ka baxsan sharciga Islaamka iyo midda gaarka ah intaba. lama oga waxa ay ku dambeyn doonto xaaladda generaalka dowladdiisii ay dulmisay.